Bismillahirrahmanirrahim kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Somali News ku soo dhawaada tabinteena qodobada ugu waaweyn waxa qaybka midowga musharaxiinta oo ka digeen mar kale ay dib u dhacdo doorashada dalka baaqna u diray madaxda maamul goboleedyada eedeyna culusna u jeediyay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Somaliland oo u dhoofay arday sabab iyo kulamo halkaas uu kula yeelanayo Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya xoog xasaasi ah ayaynu ka helnay halkan ayaa idin kula wadaagi doona abaabulka doorashada gudoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka oo ka socota Muqdisho iyo dhinacyada farmaajo Rooble oo hardan xoogan ugu jira sidii ay ugu kala guuleysan lahaayeen gudoomiyaha ku soo bixi doono iyo Mareykanka iyo Soomaaliya oo ka wada hadlay qodobo dhowr ah oo arrimaha doorashooyinka amniga ay qayb ka yihiin qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahineynaa tabinteena maalinimo u diyaar garooba daawadayaal mar kale kulan wanaagsan waa talaado taariikhda ay ku beegan tahay 18 January 2022 ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan haddii aynu ku bilowno madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay inuu dib u dhac kale ku yimaado doorashada dalka xilligaani taasoo halis gelin karta jiritaanka dalkeena ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cod uu ku baahiyay baraha bulshada ee laga soo duubay waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka amniga siyaasadda iyo mustaqbalka dambe ee dalka madaxweynaha hore ee Soomaaliya kana mid ah musharaxiinta haatan u taagan xilka ugu sareeya madaxtinimada dalka ayaa hadalkiisa ku sheegay inuu ku kalsoon yahay muddada loo cayimay doorashada dalka ee golaha shacabka in lagu soo gabagabeeyo balse waxa uu sheegay taasi dhici weydo inay ka dhalan karto dhibaato xooggan waxaana ka digay in muddo kale lagu darsado qabashada doorashada golaha shacabka aad ayaan ugu kalsoonahay in doorashada ay ku dhacayso waqtiga 40 maalmood waxaan aaminsanahay in lagu qaban karo doorashada balse ma yeelin doono in waqti kale lagu darsado Soomaaliyana dalkeena dan ugu ma jirto haatan siyaasadid ka soo horjeeda la dhacayo oo dhibaato xooggan iyo saameyn ka soo wajahday madaxweynihii hore ee dalka ayaa hadalkiisa xusay in caqabadaha ka dhalan kara haddii doorashada ay xumaato isagoo tusaale u soo qaata qaar ka mid ah wadamada caalamka doorashada oo xumaata waxaan ka dhalan karta caqabado waaweyn iyo inuu dalka la mid noqdo dalalka Afghanistan, Iraq, Liibiya dalka iyo dadka Soomaaliyeed uma baahna xilligan doorasho dib u dhacdo iyo sidoo kale ku takrifal dawladeed madaxda dawladda haatan xilka haysta iyo madaxda maamul goboleedyada ayuu ugu baaqay in waqtigii lagu talagalay ku soo cayimaan doorashada madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalkiisa ku soo qaatay marxaladihii kala duwan ee dawladnimada Soomaaliya soo martay waxa uu ka digay oo in dhagaha laga furaysto digniinada ay soo jeedinayaan beesha caalamka taasoo ugu dambeyntii sababi karta in Soomaaliya loo aqoonsado mid ku meel gaara dhinaca kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur hogaamiyaha xisbiga wadajir ee mucaaradka ah ayaa farmaajo ku eedeeyay dhankiisa in sababaha iyo qaska xilligan ka taagan dalka uu sabab u yahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa mar kale kaga digay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu farageliyo doorashada xilligan dalka ka socoto laguna talagalay in waqti cayiban lagu soo gabagabeeyo maadaama madaxda maamul goboleedyada iyo xafiiska Rooble cadaadis xoogan kala kulmayaan beesha caalamka si gaar ah Mareykanka iyo dawlado kale kuwaas oo waqtigii hore ugu balabeen golaha wada tashiga qaranka ee doorashooyinka ugu baaqay in lagu soo gabagabeeyo doorashada haddii dhici weydana ay tilaabo qaadi doonaan hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in Farmaajo muddadii uu xilka hayay inuu dalka ka sameeyay waxyaabo badan oo dib u dhigay dawladnimada Soomaaliya waa sidoo hadalka u dhigay hadalada ka soo kala baxay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee dalka ahna hogaamiyaha xisbiga UPD ayaa ku soo aadaya xilli doorashada dalka ay qayb ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dhawaan bilaabi rabaan si looga dhabeeyo waqtigii hore lagu ballamay 40 cisho in lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya kadibna loo ambaqaado midda madaxtinimo ee dalka waqtiyadii hore loo cayimay ee doorashooyinka oo muddo badan daahidu sababay dib u dhacyo xooggan hayaana waxa ka dhashay caqabado xooggan oo dalka soo wajahay waxaana haatan beesha caalamka iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya ku baaqayaan in laga dhabeeyo waqtigii ugu dambeeyana uu noqdo shirki golaha wada tashiga qaranka oo madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaare Rooble dhaxmaray waqtigii lagu gorfay in doorashada lagu soo gabagabeeyo markaana madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya kadib casuumaad uu ka helay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed booqashada madaxweynaha Somaliland ee dalka Itoobiya ayaa la sheegay in la xiriirto xoojinta xiriirka maamulka Somaliland ay la leedahay wadanka Itoobiya magaalada Addis Ababa oo horey u gaareen xaladii horeba mas'uuliyiin ka socda Somaliland ayaana halkaasi kulamo ka sii waday oo la kala qaateen wasiirada iyo madaxda kale ee dalkaasi
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la qorsheynayaa inuu kulan la qaato madaxweynaha kulanka Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya sidoo kale Muuse Biixi Cabdi ayaa diiradda ay ku saari doonaan qodobbada quseeya labada dhinac waxayna sidoo kale arrimaha ugu waaweyn ay qayb ka tahay sida Itoobiya saameyn ugu yeelan lahayd maamulka dekedda Berbera oo dib u dhiskeeda ay qayb weyn ka qaadatay iyo sidoo kale wadooyinka soo gala magaalada Berbera Itoobiya Somaliland oo ictiraaf raadinaysa muddo badan isla markaana sheegtay inay ka go'do Soomaaliya ayaa xilligan wada sidii ay xiriirro dhow loo yeelan lahayd dawladaha dariska la taas waxa saameyn ku yeelatay dhankooda cabasho xoogan ay haatan tiro dhowr jeer ka muujiyeen madaxweynaha muddo-xidheedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxayna sheegeen in xiriirada ay dalal badan la lahaayeen Somaliland oo xarkaha u jaray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo sidoo kale madaxweynaha muddo-xidheedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaxiibo dhow sidoo kale waxaan la ogeyn kulamada madaxweynaha Biixi iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay yeelan doonaan qodobbada qarsoon oo looga wada hadli doono si dhab looma wada xaqiijin karo guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka dalka oo horey guddoomiyahoodii uu qayb uga ahaa mas'uuliyiin oo xilka hore uga joojiyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa dhawaan dooranaya guddoomiye cusub guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka heer federaal ayaa magacaabay guddiga qabanqaabinaya doorashada guddoomiyaha cusub ee guddigaas oo ka kooban 5 xubnood gudoomiye ku-xigeenka guddiga khilaafaadka ee doorashooyinka dadban ee heer federaal Maxamed Ibrahim Barre ayaa xubnaha guddiga afar inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii doorashadaasi ay dhawaan ugu qaban lahaayeen xubno ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa isku soo taagay qabashada xilkan waxaana la filayaa in maalmaha soo socda doorashadan ay ka dhacdo magaalada Muqdisho si loo sii joogteeyo jadwalka cusub ee doorashooyinka laguna soo gabagabeeyay waqti hore lagu asteeyay xubnaha isku soo taagay guddoonka guddiga xalinta ee doorashooyinka khilaafaadka ayaana waxaa la kala safan labada xafiis ee dalka ugu sareyso Farmaajo Rooble kuwaas oo horey ugu loolamay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dhawaan ay ka dhacda doorashadiisa magaalada Muqdisho caasimada dalka balse uu ku adkaaday xafiiska ra'iisul wasaare Rooble oo garab ka helaya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdisaciid Muuse Cali ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu kaga hadlay weerarada xooggan ee shalay ka dhacay magaalada Abu Dhabi ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta Cabdisaciid Muuse ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya si kulul u cambaareynayso weerarada ay fuliyeen kooxaha Xuutiyiinta ee adeegsada diyaaradaha droonka iyo qaraxyo xambaarsan waxaan si adag u cambaareynaa weerarada argagixisada lagu qaaday ee magaalada Abu Dhabi ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya sidoo kale waxa inta ku daray inay tacsi u dirayaan qoysaska ay dalkooda uga sidoo kale waxa inta ku daray inay tacsi u dirayaan qoysaska ay dadkooda ku dhinteen weeraradaasi kuna dhaawacmay waxayna kuwa dhaawacmay u rajiyay caafimaad degdeg ah waxaan tacsi tiraanyada u diraynaa dadkii ay dadkooda uga dhinteen iyo qoysaskii dadkooda ay ku dhaawacmeen weeraradii shalay ka dhacay magaalada Abu Dhabi ee isku taga Imaaraadka Carabta waxa weeraradaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed leh Imaaraadka Carabta ayaa aad u yareysay joogitaankeedii militari ee dalka Yemen 2019 xilliga la isku mari waayay dagaalkii sare u qaaday xiisadaha gobolka Iran hase yeeshee waxay saameyn ku leeyihiin ciidamada hubeysan ee Yemen ee tababaran Xuutiyiinta Yemen ayaa dhankooda ku dhawaaqay inay joogtay doonaan weerarada ay ka fulinayaan ee dalka Imaaraadka Carabta ilaa sida ay sheegeen ay burbur qaybo badan oo magaalooyinka muhiimka ah ee gaarsiiyaan inta ayaan ku soo gabagabanaynaa tabinteennii barnaamij wareedka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali News mid lamid ah saaxiibayaal inta kulmi doono amaanalla